agaasimo waaxyada wasaaradda shaqaalaha wasaaradda sharafka qiimaha iyo qaayaha badan saxaafadda dhammaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaa sharaf weyniye ah oo runtii muhiimad gaara noo leh inaanu ka soo qayb galno ama maanta xilka ku wareejinno wasiirka cusub anigii wasiirkii hore axmed xaaji daahir wasiirka cusub maxamed xaaji daahir maxamed xaaji aadan maadaama ay xilwareejintu tahay qayb weyn oo ka mid ah shaqada ama ay tahay tiir ka mid ah intaa kadib anigu waxaan joogay wasaaradda muddo sanad ku dhow sanadkaa runtii wax badan baa noo qabsoomay waxaa ka mid ah 3 xilbi baadhisood oo midigaadidka dawladdu ku saabsan tahay mid qashinka ku saabsan tahay midna isticmaalka mobilka ay ku saabsan tahay waxa kale oo noo suura galay inaanu asaasno xarun cusub oo National Data Center ah shaqada kadib waxaan doonayaa halkan aad ugu hambaliyeeyo ama ugu mahadnaqo shaqaalihii aan soo wada shaqeynay muddada sanadka ku dhow oo runtii ah shaqaale aanu aad iyo aad ugu fiicnayn in badan ay soo xasuusan shaqada runtii waxa qofku ka faa'iidaa maaha lacag ama dhaqaale maaha waa barasho qodobka koowaad ka faa'iidaa waa dad barasho relationship waayo ninkii aad maanta halka wada joogteen bari kala baydhaysaa nin meeshiisii buu jooga waxaan doonayaa sidaan halka ka hambaliyeeyo wasiirka hore ee wasaaradda axmed xaaji daahir oo muddo 2 bilood nala joogay runtii 2 biloodna ay u dhiganto sidii nin 2 sano nala joogay marka sida isu dhaxgaleen shaqaalaha iyo dadka la eego oo runtii ahaa nin aad u furan inta kadib waxaan u ducaynayaa wasiirka cusub xilka la wareegaya waxaan leeyahay xilka ku fududeeyo wasiir waxa lagu keenay wasaarad runtii waxyaabo badan u baahan wasaarad wax waliba ka dhiman yihiin wasaarad xitaa kuraasta shaqaaluhu iyo meesha ay fadhiisan jireen ay ka dhiman tahay wasaarad runtii loo oran karo waaba wax badan ay dhiman yihiin allah ku fududeeyo meel walba khusaysan waa kula sheegaynaa qarin mayno meesha lagu keenay wax badan ka dhiman yihiin wixii tala iyo tusaale aan kula garab taaganahay hadalka badin maayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh